marka warqadani waxay cadeyn u tahay dadyowga hadalkaagaas aaminsan ee la sifo sharci daraabe isku korsadeen dadyowga hadalkan baa waxa la warqadan baa jawaab u ah warqadno tahay ma notaaya noqoto oo sheekh ma mahriyay gabadhayda waxaa faraxumeeyay barkhad jaamac batuun si sharci darro ah ayuuna ku haystaa waxaa sidaas leh waalidka mushtaaq cabdi halka iyadana xalay ay tiri barkhad batuun waana istooranay waana odaygayga xaalku waa mid maraya meel aan xilligan sahlanayn arrintii ku saabsanayd qoysaska ee la qarin jiray oo markaan si toos ah u timid baraha bulshada sheekh mu meerin noo tahay man warqad ka qornay sida anagoo ujeedadeedu tayna taa xidhan ee ilmaha tuurtay ee kiiska xun ku xidhan ee uu ninkaasi faraxumeeyey iyadoo ujeedadeedu tahay sidaan meesha uga soo daynayn qoys dhan oo gabadhoodii ku fadeexaynaya social media iyo xaaladda oo meel adag maraysa ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa balse inta aanan u gudagelin saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalka like saar siina share garay waxaan idin soo gudbin doonaa xogo ku saabsan qoyska gabadhan oo sheegay in gabadhooda iyaga oo aan raalli ka ahayn uu barkhad jaamac batuun si xooga uga kaxaystay waa sida ay sheegan doonaan bal aan wada daawana marka koobaad mushtaaq hadalladii ugu saameynta badnaa iyada oo sheegaysa in ay ninkani isku doorteen jacayl dooqeedana ay ku raacday waxa kale aan sheegayaa anigu mushtaaq ahaan waxa weeyaan waxyaabo waxa jira dhaqan 200 oo sanadood soo jiray waa run oo anigu shakhsiyan aan waxba ka qaban karin shaqo fara badan iyo hawl badan u baahan aniguna aanan dabcan ahayn qof keligii jabin kara deerka caynkaas waxaan samoodayay in ay 200 oo sanadood kadib sidii dhaanto oo isma lahayn 40 sanadood ka hor ama 30 sanadood ka hor caynkii lahaa ayaa stiil leeyahay oo dhalinyaro far badan oo wax baratay wax fahmay ayaan islaha way kamid yihiin dadyo wax fahmay inaanay waxba ka jirin halkaas iigu haki markana waxaa jawaabaya waalidka gabadhan wuxuuna leeyahay gabadhayda barkhad batuun ayaa sharci darro ku faraxumeeyay sifa aan sharci ahayn uu ku haystaa inantayda waaweyn waranu adeerkeed baan inamada walaalaha ay wanu wada joogna walaaladee ilmo fadcadeyn waan naga wada joognaa waxa weeyaan adeerow anagoon bixin inanta oo aan siinin ninka inta ka hambalyeynaysa buugga oo qaladaadka noocaasa facebooka nagaga jira anaga laftayada laydinkaga hadhi maayo oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan idinkaga hadhin nin walbana waan isgaranaynaa isku reerayna wadanay kulligeen nin walba wuxuu geystay waa laga goynayaa baan ku uri ina cumar doolo adiguna lambar 1 kaati waliba maadaama intaada adeer si ahayd adigu iyo aynu inagu sii garanayno oo xaafadeen isku mid ahaayeen badheerkad samaynaysay yaana kaa weyn hadho tole waxa kaloo jirta inantayadii anigu aan waalidka waxa ila maalintii saldhigaan ka soo daayay maxamuud hay qolaa dheer ila abtunow inantaasi anaga gacan aan leenay kumay jirin manay ku jirin siideyntii kadib waxa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aanan arag nin reer cabdinaana ama reer food cadaa ama reer qab isu wada geeyo dhammaan food cadaaba wada dhao nin arkay naguma jiro waxaanay ku jirtaa gacantiisa iyada oo inanta anagu aan u haysanaba inuu dhaqanka caynkaasa anoo miirkayga iyo maankaygaba qaba ayaan guursaday barkhad caadiyeena anigu dhaqamada caynkaas ay dadyoogaasi aaminsan yihiin shakhsiyan ma aaminsani waana sababta keentay inaan anigu ninkaasi aan ku qanacsan oo waxa weeyaan soo jeeda oo sixranayn oo waxa weeyaan caafimaadkayga qaba maskaxiyan iyo waxa weeyaan jir ahaan baan oo qaba inaan guursado oo markaas heshiino taasi waa taa inan qof dumara oo waxa weeyaan intii meediyaha timiday tiri warqadii laygu meheriyay baa tan ah waa dareemi kartaan waxa keenay halka waa nimanka siyaasadeeyay waxa weeyaan in sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo waliba tayada lagu ciyaaro lacagayowga ku bixiyay markii la yiri hagaajiyay shaqooyinkiina lacagayowga ku bixiyay in markaasi ninka waxa weeyaan leeyahay halala kaco simbal marka warqadii aan anagu isku mehersanay baa tan ah uu kula maqan yahay horta ma jirto anaga xagga iyaga oo sharciyeysantay oo aanu sifa sharci darraab waana ku haystaa haddaba sharciga iyaga anu kaba waxaanu leenahay inantayadii sidaasuu ku haystaa qaanuunka iyo sharciga meel walba waxaanu leenahay sifaha
sharci darre ee ku haysta inantayadii waa midaan lafteeduna dembi kale ah iyaduna waana dembi kale oo eedihiisa mid ka mid a weeyaan iyaduna waxa weeyaan inantaa maadaama uu sharci darrada ku haysto waxaan uga fadhinaa qaanuunka manu iyadana uga fadhinaa sharci darrada uu samaynayo ee uu ku haysto maadaama ana sifa sharci anaga dee inantayadii aanu ku haysantay kuna ya wasalaamu calaykum waxa weeyaan ninkaa odagii inantayadii sifo sharci oo uu kula maqan yahay oo uu kula maqan yahay horta ma jirto annaga xagga iyaga oo sharciyaysantay sifo sharci darraa waana ku haystaa haddaba sharciga iyo qaanuunkaba waxaanu leenahay warqadda yar oo sidataana dhaqanka caynkaasa anoo miirkayga iyo maankaygaba qaba ayaan guursaday barkad caadiyan anigu dhaqamada caynkaas ay dadyoogaasi aaminsan yihiin shaqsiyan ma aaminsani waana sababta keentay inaan anigu ninkaasi aanoo ku qanacsan oo waxa weeyaan soo jeeda oo sixranayn oo waxa weeyaan caafimaadkayga qaba maskixiyan iyo waxa weeyaan jir ahaanba anoo qaba inaan guursado oo markaasi heshiino taasi waa taa inan qof dumara oo waxa weeyaan intii miidiyaha timiday tidhi warqadii laygu meheriyey baa tan ah waad dareemi kartaan waxa keenay halkaa waa nimanka siyaasadeeyey waxa weeyaan in xildhibaan barkad jaamac batuun xaaladiisa ka hadlaysay ee lahayd waa gabadha waa ninkaygii oo reerkayga ay siiyey adeerkeed baanay oo ninkaa dhintay aabbaha u ahaa ee cabdinaana la odhan jiray walaalkii baanay waxa weeyaan maadaama aabaheed uu dhintay halkii aabaheed anigaa ugu jira oo ah dee mas-uulkeedii aniga ah maadaama haddaba aan mas-uulo ahay xaaladdaa shalay tole ay hadashay inantaan adeerka u ahaa ee mushtaaq cabdi cismaan waxa weeyaan runtii dee fal uu sameeyey ninkaa la leeyahy xildhibaan barkad oo uu kula kacay inantaan waalidka u ahay adeerkaan u ahay ayaa jiray falkaas oo ahaa midaan diinta iyo akhlaaqda iyo sharciga midnaba aan ma garanaysa ayay waafaqsanayn haddaba iyadoo taa hore ay dhacday oo ninkaasi inantaa aan adeerka u ahay uu faraxumeeyey xaalad adagoo xunna uu ku sameeyey ayaa haddana waxaa dhacday in uu inantii qaladkaa uu ku sameeyey hooyooyin iyo aabbo meedhan ah haddaydaan noqonina noqon doona ilmaha yara intaa leeg waxa weeyaan ceebta iyo waa caynkan iyo sidan buu haaladaba socotaan inaan idin idhaahno sidaa aad moodaysaan maahe waa caynka waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo nimanka layidhi shaqadiina hagaajiya kadibna aniga sharafteyda iyo cerdigayga dhulka jiidaya haddii aad shaqadiina hagaajiya oo laydin idhi waxa weeyaan hablo sharaftooda u korkoraysaan oo lacaga ku bixinaysaan in maxaa la idhaahdaa sharaftayda iyo qof bini aadama oo ilaahay abuurtay rabbigiina sameeyeyba intuu ina abuura haddana ina karaameeyey itana inagoo gaf iyo qalad maalin walba galla ina astura anagoon qalad gelina waxa weeyaan waxaa noo ceebaysaan noo daba joogtaan sharaftayda iyo cirdigayga dhulka u jitaan iyo karaamadaan leenahay waxaan u malaynayaa wax badan baydaan fahansanayn haddaa fahansantiina waa yeelaysaan tani waa adduunya aakharana way dambaysaa marka